السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنيقو عبد الله يلانا جنال كداوني سنوا غلير ميديا سيدين أصحاب بدن سو عصدين مقال ير oo clip yar oo aan soo dhigay shortiga asxaab badan ay waxay soo codsadeen in aan soo sameeyo videogan oo ah maaragta qaabka loo sameeyo website-ka loo design gareeyo waa maasantiin asxaabta soo codsatay anigana waxaan u fadhiyaa had iyo jeer u joogaa inaan codsigiina tixgeliyo waa maasantiin sida quruxda badan leh aad maaragta videogu la gareyseen laakiin sharti ka tagteen saaxiibayaal walaalaha qaaliga walaalaha qalbiga waxaan maaragta ka cudur daaranayaa cudurdaar yar oo waxa jiro dad badan waxa arkay YouTube-kayga subscribe gareey haddana subscribe dib u cishta marka waxa laga yaabaa in ay maaragta dhibsadeen ama ay arkeen muuqaalada ku jiro oo heesa ah marka channel-kayga markii ugu horeysay wuxuu ahaa meel laga soo gudbiyo ama muuqaalada lyrics lagu soo gudbiyo marka walaal macaan haddii aad ku aragto muuqaalo lyrics ama heeso hore kama saari karo waayo maaragta wuxuu dib igu soo bilaabayaa saacadaha ama muuqaalada maxay waqtiga la daawaday YouTube-ka ama time watch hour-ka maaragta dib iga soo celinaya marka taasna waa ka yar cudur daaranayaa marka asxaabay haddii aad aragtaan hal igu qaato taas waxa waa cudurdaar ka dhiibanayo waay marka ilaa iyo maaragta videoyada dambe oo aan gadaal ka soo gelin doono ilaa ayaga markaasi 4,000 ay markaasi ay gaari karaan kadib waa laga yaabaa inaan kuwa dambe aan ama remove gareeyo ama private aan ka dhigo marka taas ayaan ka cudurdaaranaya waa maasantiin marka aan u gudagalno muuqaalkeeni iyo maaragta qaabka design-ka website-ka waa maasantiin soo dhawaada inaan ila socotaan rajeynayaa haddaba waxaynu bilaabeynaa muuqaalkii iyo inaan sameyno haddaba waxaynu bilaabeynaa qaabka sameynta website-ka step ayaan u soconeynaa insha Allahu step ayaan u soconeynaa si aan u sameyno website professional ah oo dhameystiran marka stepka koowaad ayaan bilaabeynaa halkan searching-ka ayaa tagaysaa marka ugu horeysa Google waxaa soo furnaysaa Google Chrome-ka ama browser-kaaga ayaa soo furnaysaa browser-kaaga markaa soo furato searching-ka ayaa waxaad ku qoraysaa freehost.com intaas ayaad ku qoraysaa searching-ka waxaad ku qoraysaa freehost okay kadib searching ayaad leedahay searching-ka markaad u dirto wuxuu ku keenayaa halkan markuu ku keeno waxa weeye halkan waa sign gareynaysaa waxaad sign up gareynaysaa page-ka markuu ugu horeyso aad soo booqatay halkan waxaad gelinaysaa gmail-kaaga halkan waxaad gelinaysaa password-ka markaasi kadib waxaad leedahay go okay haddaba qaybtan registration-ka ayaa waxaad gelin doontaa number-kaaga password number-kaaga iyo gmail-kaaga ayaa halkaas gelin doontaa kadib waxaad leedahay go ama searching kadib halkan markuu keenad waxaad laga rabaa inaad robotkan aad dhaafto ama direct image-ka sida loo dhaafo waxaan kuu sheegayaa marka traffic-gaas ayaa taabanaysaa hadda wuxuu leeyahay dooro micnaha select all image with the traffic light dooro dhammaan sawiraanta ka muuqda halkan markaas oo traffic leerka traffic adiga waxa laga yaabaa taxis bus maxaa doon wax sasa inuu ku weydiiyo marka sawiraanta isku eega laga rabaa inaad dooratid marka waxaan doortaa aniga traffic light-ka okay aan leeyahay kadib waxa waaye howshiisu qabsanayaa okay intani waan soo sameynay okay intaan waan soo sameynay haddaba xageenu tagnaa markii aad maaragta intaasi aad sameyso kadib qoraalka halkan ku qoran waa arki kartaa activate account please activate your account first it is received activate email marka wuxuu leeyahay maaragta send email activate okay waxa halkan lagu diray uu leeyahay email-kaaga ayaa waxaa lagaga soo diray activate-ka linkiga active-ka laga soo dhigaya ama laga soo active gareynaya okay waxaan imaaneynaa halkan message-ka uu ku soo dhacay okay waxaad aragtaa halkan waxaa ka aragtaa account activation okay waa kan linkigii halkan yaalo marka linkii waa kan halkan yaalo halkan active ka dhigi karaa
haddii aan doono linki ayaan qaadan karaa. Okay, halka active ka dheh oo kusii wadayaa. Marka wuxuu kuu celinayaa browserkii ayuu dib kugu celinayaa. Waa kay tig ayaa saaran, waa dhammaystiran yahay. inay la socotaa rajeynaa. Ha iga degdegin haddii uu muuqaalkan sii dheer. daawade optionkii koowaad oo soo dhameynay. optionkii koowaad waxay ahayd maaragtaa inaan sign up gareeno. optionkii koowaad sign up-tii ahayd. optionka labaad marka oo website-ka ayaan bilaabeynaa. waxaan bilaabeynaa optionka labaad ama step-ka labaad oo maaragtaa loo marayo website-ka. Marka waxaan rabaa marka domain name-ka website-ka inaan halkan ka gareeyo create new account uu yiri. marka waxaa laga rabaa inaan halkan ku qoro website-ka markaas aan rabo inaan sameeyo magacaan u bixin lahay ama searching-ka magaca markii lagu qoro tusaale galermedia.com waxaan aheeday hebel waxaas.com. marka website-ka magaciisa ayaan rabaa marka inaan halkan ku qoro. Okay, website-ka magaciisa waxaan rabaa inaan ku qoro galermedia. Okay, galermedia. marka wuxuu leeyahay halkani maadaama uu free u yahay waxaan raacinaa e0.com. okay, haddii aad rabto inaad iibsato domain name lacag ah waxaad taabanaysaa customer domain name. haddii aad rabto mid free ahna halkaas ayaad taabanaysaa. okay, domain name-ka oo lacagta ah insha Allah asna muuqaal kale ka sameyn doonaa. hadda marka qaabka midka free-ga loo design gareysan loo diyaarsan lahay ayaan rabaa halkan inaan ku diyaariyo. marka wuxuu yiri available waa okay halkaas ayaad taabanaysaa. kadib start ayaad leedahay. waxaa kuu soo bixisa haddaad waa anigii soo eri dooman iyo wax sawiraanta waa iska dira badan yihiin. marka hadda wuxuu leeyahay dooro sawiraanta dhammaan sawiraanta potish ay ku qorantahay ama doomanka. okay, doomanka ayaan dooranayaa. kadib verify ayaan leeyahay. waa ka website-kan inta aad ku dhex jirto oo aad ka sameysanayso website waxaa laga yaabaa dhowr meeloo kala duwan in sawiraanta kaa hor yimaada. mar walba in waxaa laga rabaa maanka aad ku hayso. iska akhri waxaa isku daysaa inaad iska akhriso waxyaabaha uu ku dhahayo inaad iska akhriso isku day. okay, markaa meeshaan timaado waxaad taabanaysaa manager halkan ku qoran tahay aad taabanaysaa. control panel halkan ku qoran tahay aad taabanaysaa mar kaleeto. kadib markuu halkan ku keeno waxaad taabanaysaa approved meesha ku qoran tahay calaamadda cagaarta ah. thanks waa ka okay, waa kan asaga isbalaqay website-kii waa kan cookies-ka continue day. okay, halkan aad timid. halkan markaad timaado qaybtan hoose ay ku qoran tahay soft close apps installation. okay, halkaas ayaad taabanaysaa. kadib wuxuu soo furayaa control panelkii weynaa. okay, halkan markaad timaado waxaa kuu banaan inaad sameysto optionadan kala duwan midkaad doonto ka sameysan kartaa. marka optionka ugu weyn ee ugu caansan waa kan waa wordpress-ka waa midka ugu caansan. haddaba si fiican ila soco. halkan markaad timaado waxaad taabanaysaa halkan wordpress-ka ayaad taabanaysaa. kadib installing now ayaad taabanaysaa. halkan marka waxaad ku qoreysaa optionkii iyo halkan marka waxaad ku qoreysaa username-ka kasoo muuqan lahay maaragtaa website-kaaga. website-ka waxaa habeeyey hebel ama waxaa iskale hebel. marka website-kaaga username-kii oo habeeya laga rabaa. marka aniga maadaama website-kii aniga aan habeeyey laan ayaan ku qoraya halkan laano. okay, halkan waxaan ka dhiganayaa marka password-kii aan website-kii kusoo gali lahay ayaa laga rabaa inaan halkan ku qorto. okay, password-kii aan website-kii kusoo gali lahay inaan halkan ku qortaa laga rabaa laano. okay, 20. okay, halkan markaan ku qoro kadib
waxaa halkan laga rabaa inta waa bas inta waxaa ku jira gmailkii, halkan waa gmailkii, halkan waa usernamekii, halkan kadib halkan my blog website ay ku qoran tahay. waxaad ku qoraysaa magaca website-ka aad u baxsatay. halkan waxaa ku qoran site name. okay, waxaad ku qoraysaa website-kaaga magaciisa. halkan waxaa ku qoran my WordPress plot, waa description site-ka. waxaad ku qoraysaa welcome ama waxaad ku qoraysaa hi world welcome. adiga description wixii aad doontaa maaragta ku qoran kartaa. description-ka hadba wixii aad doontaa aad ku qoran kartaa. way fahantaa rajeynaa. my website, okay, my site, okay, my site. intaan aan ku qoray, intaan aan kaga baxo, intaan aan ooga daawada haddaba inay la socotaa rajeynaa. marka adiga WordPress-ka aad install garaynayso, aad qaybtaani soo buuxiso, intaan marka aad buuxiso website-ka magaciisa aad qorto, description-ka aad samayso, username-ka aad samayso. waa muhiim username-kaaga iyo password-ka inaad maaragtaa xifdiso ama aad markasta xusuusnaato, waayo website-ka wax kaleeto kuma furaysid, wax kaleeto hadhowdii kuma furaysid. waxaad ku furaysaa username-kan iyo password-ka. usernameka iyo password-ka ay ku furaysaa. haddii lacala uu password-ka kaa lumana, waxaad isticmaalaysaa maaragta qaabkan la isticmaalo oo maaragta kaasoo loss password lossin ama forget password ayaad isticmaalaysaa. gmail-kaaga markaasi kadib dambe kugu soo diri doonaa code, laakiin usernameka mar walba waa muhiim. marka usernameka iyo passwordka inaad ilaawin isku day. okay, installed ayaad leedahay. markaad installed garaysato WordPress-ka aad install garaysato, website-ka aad soo dhisayso, waxaad joogtaa waxawaaye waa stepkii labaad ayaad joogtaa. okay, marka halkan joogto waxaa kuu soo baxaya linkigan haddii aad taabato wuxuu ku geynayaa website-kii oo bilow ah. waa kay magacii Gallery Media ku qoran. halkan waxaa ku qoran qoraalkii aan qortay oo ah hello world. okay, back ayaan leeyahay, dib ayaan u laabanaya. halkan marka linki kaleeta ayaa halkan yaalo, waxaa ku qoran gallerymedia.e0.com/web -admin. okay, halkan markaan ku dhufto wuxuu toos ii geynayaa bilaabistii ama diyaarintii website-ka. marka waxaan rabaa inaan maaragta halkan aan ka baxo si maaragta qaabka usernameka iyo passwordka hadhowdii aan website-kii ugu furi lahay inaan ku tusiyo. marka waa inaan browserkan xiraa. marka browserkan waa xiray. waxaan soo furayaa Google Chrome-ka. waxaan rabaa usernamekii iyo passwordkii aniga halkan markii hore aan geliyey, waxaan rabaa inaan ku soo furo. saan ugu soo furaya. marka waxaan halkan ku qorayaa gallery. okay, halkan markaan ku qoro waxaa halkaas raacinaysaa /web -admin. intaas ayaad gelinaysaa. okay aad leedahay. okay, markaad tiraahdo halkan ayuu ku keenayaa oo wuxuu ku keenayaa halkan. marka waxaan rabaa inaan load out iraado qaabka hadhowdii marka aan u soo kicinayo ama aan ugu soo galayo website-keygii ayaan rabaa inaan ku tuso. marka haddii aad browser cusub ku kicinayso wuxuu ku leeyahay halkan geli username ama email-kaaga. waxaa la rabaa marka inaad halkan geliso usernamekii iyo passwordkii kaasoo markaasi aad kusoo samaysay markii aad WordPress-ka aad soo install garaynaysay. inaad ila socotaa rajeynaya. haddaba foojignaan sameey, ila soco. okay, loading ayaan raaday. okay, halkan marka aan jooga marka waxaa laga rabaa inaan marka aan u guda galo diyaarinta website-ka. marka halkan markaan fiiriyo view site markaan fiiriyo ama visit site markaan fiiriyo wax markaasi ama demis ama maarta oo leeyahay ama color uu leeyahay ma lahan. waa ka weli waxbaa ka dhiman oo diyaarintii weli hadeertaan ayaan bilaabnay. marka stepkan hadeertaan soo socdo waxaa laga rabaa marka inaad soo qaadato demis ama maarta template oo markaasi oo qurxin ah oo website-ka aad ku qurxinaysa ama design garaynti inaan bilaabno. okay, design garaynta halkeen ka bilaabayna. waxaad tegaysaa halkan ay ku qoran tahay Appearance, halkaas ayaad taabanaysaa. kadib waxaad leedahay markaasi demis, halkaas ay ku qoran tahay ayaad taabanaysaa. inaad ila socoto ayaan rajeynayaa. muuqaalka ha ilaawin inaad like saarto. saaxiibadaadana la wadaagto.
wow ila soo waa anigoo Cabdalla Ilaan ah. Channelka daawanaysan waa Galer Media. Ila soo daba markii aan Abriis aan soo doorto Abriis markaan taabto wuxuu leeyahay maarta aad deemin. Okay, deemiska markaan raba inaan taabto marka godkan banaan ayaan taabanayaa. Godkan banaan markaan taabto halkan ayaa waxaan ku qorayaa Astro. Okay, Astro halkaas ku qor. Astro marka halkaas ku qoro. Kadib searching ayaan u dirayaa. Kadib searching-ka markaan u diro wuxuu ii keenayaa website-yada template ama demis free ah, kuwaasoo markaas iga caawi kara inaan website-kayga markaas aan ku quruxsado. Marka inaan ila socotaa rajeynayaa. Ha iga degdegin. Okay, ha iga degdegin. Okay. Marka templateska halkan waxaad ka soo dooran kartaa hadba waxay ku xiran tahay markaasi website-kaaga iyo maarta iyo qaabka adiga aad u rabto inaad markaasi aad u design gareysato ama u diyaarsato. Okay, inaan la socotaa rajeynaa. Marka hadda waxaan soo qaadanayaa midkan ayaan soo qaadanaa. Midkan waxaad kaaga muuqata hadda home, about, blogs, shopping, contact, plus none. Inta kan oo kale hadda fiiri waa waaye home, service, project, profile, blog, shop. Kan marka waxaa laga yaabaa kuwa qaar lacag waaye waa la iibiyaa, marka kuwa qaarna waa free. Marka template-sidan marka kuwa qaarna waa free, kuwa qaarna waa la iibiyaa oo waa lacag. Marka kan hadda marka waxaan rabaa inaan hadda kan aan soo degsado. Soo dejintiisa wax dhib ah ma lahan. Installed oo kaliya ayaad leedahay. Waa sida application aad usoo install gareysanayso oo kaleeto. Inaad ila socoto ayaan rajeynayaa. Okay. Waan install gareeyay kadib waxaan leeyahay active ayaan leeyahay kadib waxaan leeyahay active. Okay. Waan soo qaatay waa kan demiska halkan ii saaran. Marka option-ka ugu xiga maxaa waa ama step-ka ugu xiga waxaan tegayaa meeshaan plugins ay ku qoran tahay plugins meeshaan ay ku qoran tahay. Kadib markaas installed plugins ayaan taaban. Add new plugins. Okay. Kadib markaa halkan ii soo baxo option-ka markuu ii soo baxo halkan ayaa waxaan ku qoraa Elementor marka halkan ku qoro Elementor website. Okay. Midkan guduudan ayaan soo qaadanaya marka Elementor website. Okay. Asagaas ayaan install soo lahayaa. Inaad ila socoto ayaan rajeynayaa. Elementor website building. Okay, kan ayaan soo qaatay. Kuwa kale waa soo qaadan kartaa, mid walba waa soo qaadan kartaa. Marka midka ugu qurux badan ama maarta design-ka ugu quruxda badan waa kana. Marka website-kaaga markaas uu ku noqon karo mid markaas professional ah. Kuwan kale marka waxa badan tag-tagooda badan. Xitaa Elementor midkan xitaa waa soo qaadan kartaa oo kan maarta marka kan soo qaadato waxa waaye kan markaas soo qaadato waa isku mid. Elementor iyo maarta template markaas soo qaadato waa isku mid. Marka kan haddii aad soo qaadato iyo Elementor haddii aad soo qaadato waa same. Marka Elementor-ka markuu installed ku dhameeyo kadib activate aad leedahay. Markaasi wuxuu ku sii geyn doonaa insha Allah. Waxaad u guuleysay doontaa markaas design gareynta website-kaaga. Okay, kadib markuu intaas dhameeyo activate ayaad leedahay. Active markaad tiraahdo dashboard-ka markaasi edit grade-ka ee website-kaaga joogtaa. Kadib marka halkaani Elementor ku qoran tahay ayaa dooranaysaa. Waxaad taabanaysaa get start ayaa taabanaysaa. Kadib halkan wuxuu ku leeyahay create your first page. Halkaani ka sameey page-kaaga ugu horeeyay ka sameey. Okay. Haddii aad maarta aad luqadda Ingiriiska aad taqaanana way ku qurux badan tahay oo video-gaas aad daawato ayaad ka helaysaa sharaxaad markaasi ku anfacda. Marka halkaani wuxuu keenay design-kii iyo diyaarintii maarta website-kayga ama maarta xogta website-kayga. La soco muuqaalka xiga insha Allah. Muuqaalka xiga aan ka soo sameyn doonaa insha Allah. Kan uu dheeraaday.